Qofkasta oo developer ahi marun waa bilaabay project usan dhamestirin laga yaabay projectgaasi kugu adkaado ama waxaad luminaysa xiisihi qabtay marka bilaabaysay arrinkan marun waa martay somahan kaliga maahan waxay maanta ka hadlaynaa sababaha keena inaad ku guuldaraysato dhamestirka projectada bilowdo iyo qodob aad muhiim u ah kaasi oo ah saad uga taxadiri lahayd inaad ku fashilanto dhamestirka projectada bilowdo una gaari lahayd dhamaadka soo dhawaad dhalinyaro bilowga project cusub oo programming ahi waa mid aad u xiiso badan khaasatan markuu ka yimaado fikrad aad adigu leedahay oo aad rabtay u beddesho system ama software waxaad ka fikiraysaa waxyaabo badan oo rabtay aad qabatid laakiin muddo yar kadib waxaad arkaysaa adigoo ku dhex xaliban debugging dasta error sugaa saar lahayd projectgaasi luminayana xiisihi u qabtay inaad projectgaasi ku dhammaystirto projectyada aad bilaabaysaana uma fashilmaan fikradda oo xun awgeed sababta ugu weyn ay u fashilmaan waa khaladaad aad ka taxadiri karto aynu isla aragno qaar ka mid ah khaladaadkaasi iyo sida uga taxadiri lahayn aynu ugu horeysiino qodobka soo noqnoqda marar badan kaasi oo ah ujeedo la'aan waxaynu uga jeednaa qodobkani tusaale ahaan waxaad rabtaa inaad dhistid application fiican haddaba abkaas fiican waad ku dawaqaysaa waa uu xumaanayaa markaad feature cusub soo darto ee ku darto ee uu dhammaan waayo markaad bilaabayso project isweydii oo isku day inaad si cad ugu qeexdo ujeedka aad ka leedahay projectigan yaa waabkani ama softwarekani caawin doonaa sidee ayaa u ekaan doonaa marka uu dhammaystirmo projectigani yacni waa inay kuusii sawirnaataa qaabka uu soo bixi doono projectigani markuu dhammaado waa inay ku cad yihiin inta feature ee rabto inuu yeesho arrinkaas ma isla fahanay qodobka labaadi waa inaad xadido scope-ka projectigaaga si aadan u dhex gelin muujado errors ah tusaale ahaan waxaad rabtay inaad dhisto application fudud waxaanad qorshaysay featureska rabtay inaad u yeesho kadibna waxaad dhexda ka soo dartay features aadan hore u qorshayn oo laga yaabay inaysan xitaa ahayn featureska muhiimka ah sida dark mode oo kale ama in lagu adeegsado luqado badan tani waxay abuuraysaa caqabado cusub oo laga yaabay inay dumiyaan featureskii muhiimka ahaa ee aad qorshaysay sidaad taasi uga taxadirtana focuska saar waxa loo yaqaano minimum viable product waana inaad dhisto qaabka ugu fudud ama fashionka ugu sahlan ee ku dhammaystirmayaan ujeedka aad ka lahayn projectgaasi kadibna waxaad samayn kartaa liis aad ku qoranayso featureska aad ku qurxin karto projectigaaga balse oo marka dhammayso minimum viable productiga markaad intaasi dhammayso ayaad samayn kartaa waxyaabaha aad ku qurxinayso projectigaaga qodobka saddexaadi waa qorshe xumo dabcan tani waa caqabad si weyn u haysata dhalinyarada ku cusub programmingka amaan hore u dhisin projectyo real life ah inaad qortid codeshka programmingka ee ku dhisayso abkaasi ama projectgaasi waxaa ka muhiimsan inaad qorshayso waxyaabo laga yaabe inaad muhiimad weyn u arkin balse qaybinka applicationka waxyaabahaas waxaa ka mid ah inaad qorshayso si xogta u dhex marayso uguna shaqaynaysa applicationka sida qaybaha kala duwan ee project ugu wada xiriirayaan iyo inaad projectgaas u kala qaybiso qaybo yaryar oo si fudud maarayn karto qodobka afraad ee isna fashiliya projectyada programmingka waxaa ka mid ah inaad dhayalsato adkaanta waxyaabaha qaar ama featureska qaar ay yeelan karaan waxaa jirta in markaad dejinayso qorshaha projectigaaga ay features badani kula muuqan karaan kuwaad si fudud qaban karto tusaale ahaan inaad samayso login system waa arrin u muuqan kara mid fudud xaqiiqatanna waxau qaadan karaa waqti ama haddii aadan waqtiga ugu talagelin oo kugu adkaan karaa oo laga yaaba inaad sabab noqdo inaad joojiso projectgaasi jad caqabadahaas oo kale uga taxadirtana waxaad samayn kartaa inaad qaybo yaryar u qaybiso featureska waaweyn tusaale ahaan markaa hore samee login formka iyo designkiisa kadibna samee authenticationska sida passwordska iyo qaabka loo maamulayo kadibna database ku xidh sidani waxaad ku qabanaysaa shaqo weyn adigoo aan dareemin culays badan qodobka shanaad ee isna fashiliya projectyada aad bilaabayso waa debuggingka arrinkani waa mid si weyn wax yeelayn kara projectigaaga haddii aad uga taxadirin hal error oo si fiican u xallin weyday ayaa sababi kara inaad ku dhex xalimato projectgaasi maalmo dhan haddaba qaabka ugu fiican ee tahay inaad wajahdo xalinta errorska ama debuggingku waa inaad marka hore fahamtid errorkan iyo waxa sababaya taasi si aad u heshada waxaad adeegsan kartaa developers tool ama consolka browserka si aad u aragto waxyaabaha sababaya errorkan kadib markaad ogaato errorkiina aad u xaliso si step by step ah waxaad sidoo kale xilliga abkaaga caawinaya xalinta errorska ee ayga sida ChatGPT oo ku sharaxaya errorkan iyo meelaha uu ka imanayo ay teena taxaliso ha ku niyad jabin oo ha joojin projectigaaga sababtoo ah waxaad xalin kari weyday errors debuggingka wax badan ayaa laga bartaa oo kor u qaadaya xirfadda programmingka muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku egyahay waxaan rajaynaynaa in muuqaalkan uu caawin doono dhalinyar badan oo ku cusub ama muddo kooban ku jira saaxadda programmingka iyo dhisidda projectyada real life-ka ah la wadaag muuqaalkan asxaabtaada mahadsani